الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga aan jeclahay oo hawada aan iskala socono, waxaan rajeynaa waqti walba idin tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu idin wanaajiyo midaan idin leeyahay insha allah qof walba oo muuqaalkayga soo gaaro. walaalayaal maanta waxaan rabaa warbixin yar oo muhiim ah inaan idin siiyo insha allah haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo. waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno maamaha Soomaaliyeed jirta oo dhahayso si ay ilkana wax ku cunaan carabna uusan waxba ku gaarin. ilaahay subxaanahu wa tacaala ilkaha carabka anoo kale ilaaliyo inay is dhibaateeyaan. arrintaas wax kale maaha walaalayaal. anigaasaan maaragtay hore idinkugu sheegayba bishii labaad horaanteedii meelahaas waa xanuunsaday. xanuunka aan xanuunsadayna wax kale ma aha, waxuu ku saabsan yahay waxyaabihii ii sheeg wallahi haddaa iga rumaysanaysiin waxyaabaha aan la xanuunsaday waxaa ka mid ahayd arrimo ila soo wadaagay dartooda. subxaan allah, dadku way kala qalbi jilicsan yihiin, aniga qalbigayga aad u jilcan yahay oo waxyaabaha qaar markii la ii sheego i taabanaysaa si waxa u qaadanaa yacni oo dhab ah. murug waxaa isgelinaa aan awoodayda ahayn, waxaa isku dayaa qofkaas inaa caawiyo ama dhibkaan haysto wax un haddaa caawin karin xataa maanta dhan waa la murugoonaa. wallahi alcadiim qiso yaraa jirtay hadda ka hor waqtigii kow ay Suuriyaanka imaanayeen muqdisho imaanayeen. wallahi dad waxaan arkay aad iyo aad u dhibaataysan. subxaan illaahi, muddo isbuuc ah umaleynaa ama 2 isbuuc arrintaas waa la xanuunsanay. waa oohintii madaxa igu dhufatay kadib qalbiga kala dilaacay, aniga dhan si kala noqday. marka horta walaalayaal qofkaas ahay aniga qof aad u qalbi jilicsan ahay. marka way dhibaateynaysaa arrin walbo dhib leh oo la ii sheego ma aan arko la kulmo saameynay igu yeelataa. subxaan allah, si walba da isku adkeeyo waa tii i saamaysa arrintaas. waxaa dhacday gabar oo walaalaha ka mid ah waxay ii sheegtay arrin aan aad iyo aad maaragtay xaaladay ku sugneed iyada markaas ku sugneed. ilaahay waxaa uga baryaa inay ka baxdo insha allah. xaalado badanaa jiray laakiin xaaladii igu darneed noocaasay ahayd. qofkaa dheer waxba adag u qaban karin, oodan gaari karin, oodan caawin karin, oo dhibaatadiisana dhibaato maaragtay xadkii loogu talagalay dhaafta uu noqday. horta dhibkii ugu weynaa oo i dhibaateeyey arrintaasi ahayd walaalayaal. sidaas darteed anaa waxay noqotay inaan naftayda la dagaalamo oo ani hadda dib isku cilaajiyo oo aniga marka hore aan maaragtay booska caadiga ah ay kusoo noqdo walaalayaal. marka taasaa sababtay in aan ma aragtay video soo dhigi waayo muddo isbuuc ama 2 isbuuceed amaleyna, iyo inaan taleefon ka jawaabi waayo, iyo inaan dhageysto wax la ii soo diray. waayo wax la ii soo diray dhan waxaa waaye walaalay waan jiranahay, abaayo dhibkaas haysta, abaayo kanaan ahay. waa dhibaato aan garanayo aniga haysay oo wax ka midna isii hayaan weli. sidaas darteeda ma ii suurtagelin caafimaadkayga yacni awoodayda caafimaad ma ii suurtagelinin walaalayaal inaan kasoo jawaabo taleefanadiina. horta arrintaas raba marka hore idinla wadaago, xumaan ma aha. haddii aan maaragtay qof xun ahayna ama aan dadka walaalihiisaan la damqanayn ahayna wallahi inaan idinla soo wadaagi lahayn aniga privatekayga iyo taleefon numberkayga. taleefonkan idin soo dhigaayo meesha waxaa waaye taleefonkayga khaaska aniga aanu lahaa waaye walaalayaal. sidaasay tahay tiro iyo xisaab male inta gabar walaal ee aan la hadlay, oon la sheekaystay, oon waqti la qaatay. laakiin walaalayaal shay walba xaduu leeyahay. haddii xadkiisa uu dhaafo qofna ma awoodi karo. ani waxaan ahay ibni aadan idinkoo kale ah oo hooyo ah oo arrimihiisa iska haystaan qaaseed, arrimaha bulshada, arrimahana idin soo bandhigayo wixii oo dhan. marka hadda gar allay leedahay idinkan bal waa gar dhiganaynaa maanta aan idin soo bandhigayaaye aniga waxaasoo dhan misku awoodaa. oo haddana aan ahay qof waxaan idinkaga sheekeynayo weli aniga saameyntooda waa igu dambeysaa oo yacni 100% kama caafimaadin walaalayaal. qof iyo 2 iyo 3 iyo 5 ilaa iyo 10 talo waa siin kartaa, wax waa la wadaagi kartaa. laakiin ka waran aniga isma lahayn Soomaali oo dhan asaan horta u xanuunsanaada runta idin sheego. aniga isma lahayn Soomaali oo dhan saani wada xanuunsan tahay, dhibaatadaana jirto oo gabdhihii dhibaatadaana haysta isma lahayn walaalayaal.
subxaan allah waxaan islaha mataqaana adiga keliga iyo dad yaroo koobanay waxaan maaragtay haayaan ani horta keliya waxay ahayd ulajeedadeyda suuratulbaqra faa'iidadaha ka heshay dadka la wadaag laakiin howlo aanan ku tashanaynin oon diyaar u ahayn oon khibradooda lahayn oo maxaa la dhahayay awooddeeda aan lahayn aniga igu soo furtay walaalayaal sidaas darteeda marka waxay noqotay in aniga nafteyda ay maaragtay dhibaato gaartay noqotay marka raali ma ku tihiin inaa maxaa la dhahayay waxa awoodeyda ahayn ay dhahdin sameeya in maxaa la dhahayay wax aniga dhibaateynayo oo idinkan idin caawinayo maya qof raba ma jirtaas sidaas darteeda marka maanta waxaan rabnaa xal inaan helno oo meel dhex isugu imaana u baahannahay horta walaalayaal midaan idin sheega ama aniga ii sheega ama qof kale u sheega dhibaatada ku haysato alla ilaahay qofkii asdaysa talo wanaagsan amuu ku siiyaa waa u sheegan kartaa waan ogahay xanuunkan qofka markuu hayo wuxuu rabaa maanta dha inuu ka sheekeeyo qof walbana u sheekeeyo laakiin xalka taas ma ku jiro xalka wuxuu ku jiraa qofka aad wax u sheeganaysid xanuunka ma qaadi karo kaliya waxa u ziyaadaya muruga u ziyaadaya waxa laga yaabaa inuu talo ku siiyo marka sidaas darteed waxaan rabaa maanta inaan idin sheego macna anama ii sameynayso idinkana ma idin sameynayso saanna ma isku caawin karno inaan maaragtay wada hadalno fiir qof walba isoo waco wuxuu u baahan yahay 1 saac iyo 2 saac inaan isla sheekeysano oo wixii aan isla qaadaa dhigno oo hadana mar kale igu soo noqdo hadana mar kale wada hadalno walaalayaal wallahi ma awoodi taas 1 saac iyo 2 saac wallahi inaysan iga go'in aniga hawlahayga i haysto waxaan hay sheegay qof arday ah qof wax baranayo qof maxal lahay yani qof arday waxaan ka wadaa qof wardigiis maalmeed akhris uu ka rabo qof maxal lahay hooyo ah qof 100 program maskaxda ku haysato kan gacmaha laga qabnaa maskaxda midka lagu haya ka daran waxaan ka fikiraayo soo diyaarinaa waxa idin sheegi lahaa waxaan soo duubi lahaa diyaarisa iga rabaan ka soo shaqeynay rabaan waxyaabahan yar ee halka aan ku fiirsanaysiin 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo waxa waaye hawsha laga soo maray Ilaahay subxaanahu wa ta'ala og adigana waxa iska fiirsanaysa adigoo raaxaysanaya gurigaaga fadhiyo hawshaada iska haysto ayaa wax muhiima wax ku taraayo wax khibrad ku soo kordhinayo inta walaale YouTube wax ka soo gudbiso dhibaatadaasi wax ku soo gudbiyaan Ilaahayna khayraas iyo qofkii waxa umada anfacay u soo gudbinayo kulligood u duceynaya marka waxaan idin sheegayaa maanta walaalayaal oo aad u wanaagsan horta dhibaatada Allah naga wada saarana haysato xanuunka iyo dhibaatada haysato Allah naga saaro walaalayaal xanuunka iyo dhibaatada waxa keenayo waa imtixaan waxa keenayo dunuubteena keenayso marka hore waxa u baahan tahay hadii aad u baahan tahay inaad ka baxdid dhibaatada xala u baahan tahay go'aana u baahan tahay maxay ii sheeg ani taraysa adna ku taraysa maanta oo dhan hada waxay weydiisan ku sheego aadan sameeynin ana enerjiga iga dhameysay adna waa isdaalis waqtiga iska qaaday natiijana ma aadan gaarin wallahi walaala jira amaan mudan ma sha Allah mar allaali iyo markii ay maqleen cajaladeyda booday oo suuratul baqara aqristay oo kaliya markay soo faa'iideen wallahi inta isoo wacay dheen walaalay waxaan ka faa'iidnay suuratul baqara markaa ka soo sheekaysay aqriskeedaan bilownay xataa gabdha kamida waa idin kaga soo sheekay Ilaahay khayr ha siiyo saasa lidin ka raba qofka dhibaataysan adiga waaye fiir hada adigii aadan dhaqdhaqaaq sameynaynin hadal muxuu ku anfacay sheeg adiga hadal muxuu ku anfacayaa hadal waxba kuma taraayo ficila u baahan tahay meel hoo u baahana liiri hadal kuma bogsooto marka maanta laga bilaabo waxaan ku sheegay adigii dhageysanay waxaan ku sheegay waad xanuunsan tahay culaysa ku haysto dhibaata ku haysto horta dhibkiya qaado Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qaado Ilaahay ba horta dhibka qaado marka hore waxa la imaata tawba istighfar la imaw Ilaahay u toobadkeen Ilaahu waxa tiraa dambigan galay oo dhanan kaaga soo laabtay Ilaahu dambigayga ii dhaaf Ilaahu ii cafi Ilaahu ii naxariiso kadibna dacfigaagi ee baahidaadii dhibaatada adiga ku haysato Ilaahay ii adiga xijaab idin ma dhaxeeyo Ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun Ilaahay subxaanahu wa ta'ala balankiisa ma baaqdo idan meeshay wax ka qaldan yihiin waa annaga la nooga baahan yahay inaan dhaqaaq talaabo hore u qaad tawakkal ala Allah ilaahayna talada u dhiibo inna Allah yuhibbul mutawakkilin walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoonka isku dhiibo adoonka tala saarto adoonka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u jihaysto
وعاونايا أسجانا بلن قاد إله سبحانه وتعالى بلن كان إلهي مباجيو دعاء هذه إلهي وكا أقبله مركا هرا توبة لإماو مركا لبعض نوحا لإماتا استغفار كدرسو أو استغفار لإماو هذه أنيقا محال لها دنبي وين ما انقلي أنا وحان سميني مؤجين waxaa laga yaabaa waxyaabo anaga aanan ogeyn oo laakiin ilaahay agtiisa ku weyn oo dambi weyn ah iyo dunuub muuqato anaga baan ognahay inay dambi taajiro aan sameynay marka walaalayaal waxa leedihiin ilaahayow wixii aniga aan galay dambi ah inta aan ogahay iyo intaanan ogeyn iyo inta adiga iga ogtahay ilaahow dambigayga ii dhaaf sadaqa la bixi kartaa oga faraxso qof maskiina ah ogtahay xaaladiisa ina wax ku sadaqaysatid sadaqada waxay keentaa caafimaad iyo dambi dhaaf ilaahay subxaanahu watacaala caradiisa ayay dabooshaa walaalayaal istighfaarta waxaa laga helaa caafimaad xoog iyo waxaa laga helaa anigaan idinla hadlay xataa iigu soo duceeya inaan istighfaarta badsado isaliga nebiga aan isku soo duceyno oo macnaheeda ma aha walaalayaal waa ina anigana ii duceysaan waxa iigu duceynaysaan wax walba oo khayra inuu ilaahay subxaanahu watacaala ii fududeeyo inuu ilaahay ii fududeeyo hadalkan idin sheegayo oon meeshaan idinla soo fariisanayo wallaahi alcadiim qof baa hadal iskaga hadlayaa macnaha uu kasoo sheekeynaa laakiin qof ama dad ayay noloshoodii bedelaysaa oo darajo ma aragtay boqolaal darajo ay maaragtay noloshiis qofkaas ka bedelaysaa marka waan ogahay inaa ii duceynaysiin ilaahay khayr ha idin siiyo waxaa kaloo iigu soo duceysiin inuu ilaahay ii fududeeyo inaan barnaamijyadan oo kale wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala oo ma aragtay iiga soo yeersiiyo oon idinla soo hor fariisto ilaahay waafajiyo taadi kale midna waa idin sheegaa dhowr jeer aan isku soo xijiyay barnaamijyadan dhiirigelinta awaanada iyo wacdiga ah laakiin qofna ma yani waxaa fiirsatay dhowr boqol fiirsatay markaan anigana waqtigayga soo geliyo oo laga yaabo inaan xanuunsanahay laga yaabo inaan mashquulsanahay laga yaabo inaan daalanahay hooyaan ahay oon maanta dhan wax idin soo diyaariyo mawduuc intaa idin soo diyaariyo soo duubo oo ma aragtay aan soo hagaajiyo filinkii soo jarjaro oon soo dhigo oo dhowr boqol ay fiirsatay ani marka niyad intaan ka keenaa wax ku soo diyaarinaa ii sheega niyad ma jirto markaas walaalayaal waxaa idinkaga baahan yahay shayga haddaa ka faa'iiday like iska saar muuqaalka sababta like u saaris waxay tahay muuqaalka dad kale sii gaaraya like-ta ma aha wax kale waa in uu qof kale sii arko videoga sii soconayo haddaa idinka faraha ka dhaqaajisiin oo inta ka socotiin anna waa soo soconaa macnahayga ma aha kaliya inaan follow ku rabo iyo like ku rabo macnaheeda ma aha like waxaa sameynaysiin qofka isbedelay ku sameynaysaa noloshiisa way taabanaysaa haddii aad si fiican aad u sheergaraysiin muuqaalada idin soo diraayo oo wax idin taraayo muuqaalkan adiga hadduu wax ku taro sii gudbi leanno qof kaloo walaali adigoo kale u baahanoo wax u tarayaa anigana markaas ducaan helaa ajiraan helaa adna waa helaysaa qofkaas kalena wuu liibaanay marka walaalayaal saas inaan ma aragtay oo saas wax laisku dhaafsado waayo ma ahane hal dhinac keligeed wax ma ka soconayso waxaan isku daya isbuuci 2 mar camal inaan kasoo dhigo barnaamijyadan insha Allah hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaal noqdo markale waxaan idin xasuusinayaa mawduuciina ama dhibaatadiina ina sheekh u sheegtiin ina qof kale u sheegtiin wallahi alazim idinka ma caawinaysan taskaliya waxa idinka caawinayo waxay tahay ina idinkana dhaqaaqdiin maanta suuratul baqara qiimahay leedahay shuyuukha ku jirto oo macallimiina ku jiro oo waxaan ku dad ruqyada taqassus ku aha ku jiro youtube-ka anfaq yani waxaan ka wadaa si basiid ah ku qor youtube-ka ishaq waxa tiraahdaa suuratul baqara faa'iideeda ama istighfaarta fadligeeda ama saliga nabiga fadligiisa ama kan fadligeeda ama sideen isku daaweeya sideen isku cilaajiya ruqyada saxda ah maxay tahay ku qor youtube-ka way idin soo baxaysaa suuratul baqara baran kartaa kaligaaga baran kara bal quraanka kaligaa baran kara kaligaa wax oo dhan waa samaysan kartaa hadaa adiga laakiin soo jeesatid sidee ku soo jeesanay ilaahay tuug taas way tan lisku haysta sideen ku soo jeestaa go'aan ku qataa soo maaha ilaahay bari أعجز الناس وحاواي قفكي إلهي بريديس كعجز سوا إلهي بريديس هنا وافجي وإذن سو دعينا إذن كنا دعيسته حتى وحا إيشك وكوها ليلي كرتا أضو إسكفدي هاوش هذا إسكوته وحتى هذا سفض إلهي وربي يفض إنا كبريو إلهي دعاء ذي يفض أضو إسكسعد وحتى هذا قصب ما إنا سوف تسوي سقادتي مية كدب وحا أركيسا الشيء سعدوا البلاهي سأوبرين يسيد وأتوغي يسيد أضو وحي بكوفض هذا ناس أركيسا oo wixii sameyn kara is arkaysa insha Allah ta'ala
marka walaalayaal warbixintaas sare maanta inaan idin la wadaago waxaan rajaynaa inaan waxba ka tagin idin ma nacabi waa idin jeclahay laakiin waqtiga ayaa ii saamixi waayay inaan taleefanadiina badan kasoo jawaabo waxaa kale ii sheeg iyo aniga dhibaatada markii la iiga sheekeeyo wax dhib badan ama xaalad daran markii la iiga sheekeeyo way i dhibaataynaysaa marka anigana ma awoodi walaalayaal hooyo masaakiin ah ilmo korsataan ahay marka waxaa waaye dee idinkana dhib ilama rabtiin waa taas dhibaato ilama rabtiin anna idin lama rabo marka waxaan idin sameynaa aniga dhiirigelin insha allah oo mar walba waxaan idin xasuusinaa xalka meeshuu jiro waa cinda allahi ilahay agtiisu xalka jira mar walba ina ilaahay subxaanahu watacaala barisiin oo tuugtiin gacmaha u horsatiin qofkii awooda salaatuleel ha usoo kaco qofkii awooda wardi ha samaysto saliga nebiga 100 200 300 500 waxaa awoodid ka aqriso istigfaarta sidoo kale mar walba waxaa ogaataa dambiilaha inaa adiga tahay haddaa ogaatid dambiilaha inaa adiga tahay oo ilaahay uusan ku dulminin oo ilaahay aad u qiratid dambiile inaad tahay ilaahay subxaanahu watacaala ra'uufu raxiim waaye wuu noo naxariisanayaa ilaahay waxaan ka baryayaa dembigeeni dembi waalidkeenaba inuu dhaafo walaalayaal allahuma aamiin ilaahay dhibaatooyinka iyo culeysyada iyo waxyaabaha aan tabanayno walaalayaal allah subxaanahu watacaala ha naga dulqaado ilaahay ha noo naxariisto ilaahayna guusha annaga ha na sii rabbana ansurna walaa tansur calayna yaa rabbi ربنا يا رحمن يا رحيم إله أدوامنا في كل مكان ونحريصه إله ربي ورحمن وقبلها مسلمين تأودن عافي ويدش مسلمين تعافي مسلمين تأودن ميلي جوغان ميلو البي جوغان إلهي سبحانه وتعالى متكي حنونسن حنونك كقاضو والله أرنتاس وحاوي ولا ليال مركز تو إذن كوكو علينا يا إن أدعي ستان دعاء وشيء عجيبة نولش هذا فرحة سينيسا إلهي سبحانه وتعالى وحيابي علاسك سارناين وكوكو فضينا يا sidaas darteed ilaahay subxaanahu watacaala uu noo amray taadi kale ducada faa'iidada leeda waxay tahay ilaahay haddaa hor fadhiisatid oo maanta dhan u sheekaysid oo tiraada ilaahayow dhibkaas haysto ilaahayow dhibkaas haysto wallahi salliga waxaa kasoo kacaysa adigoo murugadii wixii oo dhan ka baaba'een haddaa si dhaba ilaahay subxaanahu watacaala u tugtid af carabi inaa ku barisid maaha ilaahay asagaa luuqadaha dhan sameeyey luuqad allaali luuqada taqaanid ilaahay subxaanahu watacaala ku bari qasab maaha af carabi keligiisa muuqaalkeeni maanta meeshaan aan kusoo gabagabaynaa walaalayaal waxaan rajaynaa inay ii cudur daari doontiin waxaan rajaynaa inay fahmi doontiin muuqaalka halkaan aan kusoo gabagabaynayaa midkaan mid ka xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fi amaan illah